بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واد ما سنتين لمان أصحابتا كحرن جنال كينا معاشق اوفيشال يوكوان كحرن باء ومركزنا للصعدة. واني هو زكريا محمد عبد القادر. waxaan jeclaystay maanta inaan idiin soo gudbiyo toobiga laga soo codsaday. toobigaas oo ah sidee ku kasban kartaa qalbiga janjeera. dunida aynu guudkeedu saarannahay waxaa ku nool qowmiyado kala duwan, kuwaas oo aan isku diin, isku af iyo isku dhaqan toona aan ahayn, balse waxa ay ka wada siman yihiin jacaylka, hinaasaha ama masayrka iyo waxyaabo kale. qarniyadii hore jacaylka waxa uu ahaa mid aad dadku u qadariyaan, aadna u qiimeeyaan. waxaynu ognahay in dad badan ay u dhinteen jacaylka, halka kuwa kalena dhibaatooyin badan kala kulmeen. dadka baalka lama iloobaanka ah ka galay taariikhda jacaylka waxaa ka mid ah jacaylkii cilmi boodhari iyo hodan, qays iyo liila, cantar iyo ceebla. qarnigan aynu ku jirno dad badani waxay aaminsan yihiin in jacaylku yahay wax jira, halka kuwa kalena ay u haystaan in jacaylku uu yahay wax aan jirin, oo uu ka kooban afka oo keliya oo aanan uur ku jirin. laakiin waxaa xaqiiqo ah in jacaylku yahay wax jira, kaasi oo ka bilowda ka helitaan iskuna bedela dareen ku abuurma qofka qalbigiisa. dadka aaminsan in jacaylku aan ahayn wax aan jirin, waxaan dhihi karnaa waa kuwo aan fahamsanayn waxa uu yahay jacaylka, oo aan weli wax jeclaan. inta aanu u gudbin dulucda maqaalka oo ah sideed ku kasban kartaa qalbiga janjeera, ayaa waxaa laga yaabaa in ay dad badan ay isweydiiyaan su-aasha ah, waa maxay qalbiga janjeera? qalbiga kaa janjeera waa qof aad kaclatay oo isagana aanan u soo jeedin jacaylkaaga ama ku mashquulsan qalbi kale. dhalinyaro badan ayay arrintan la soo gudboonaatay, kuwaas oo qaarkood ku degdegay in ay u soo bandhigtaan jacaylkooda qofkii ay jeclaadeen, iyagoo aan isweydiin maxaa kaaga imaan kara, maxaad kala kulmi kartaa. waxaa dhacda in inta badan in qofkii ay u soo bandhigteen jacaylkoodii uu soo dhaweeyo soo dhaweyn aan uur ku jirin, balse ay ka tahay niyad dhis, iyadoo qofkii jacaylka hayayna uu u qaato in uu ku guulaystay jacaylkiisa oo uu helay qalbigii uu gaclooday oo u dhibtoonayay. laakiin muddo kadib ayuu ogaadaa in uusan helin jacaylkiisa oo uu ku guuldaraystay kasbashada qofkii uu qalbigiisii u taamayay. taasi waxa ay sababtaa niyad jab weyn, iyo iyadoo qalbigiisu soo gaaro dhaawac xanuun badan. qaar kale oo ka mid ah dhalintan waxa ay dantu ku kaliftaa in ay qarsadaan jacaylkooda intii ay guuldaro iyo xumayn kala kulmi lahaayeen usoo bandhigidda qofkii ay jeclaayeen. taasina ma ahan mid uu qalbigooda ku bogsanayo, waxa kusii kordhayo jacaylka iyo rabitaanka uu u qabo qofka uu jecel yahay. soomaaliduna waxay ku mahmahdaa waxaad qarsato way ku qarsadaan. haddaba dhagaystow, haddii ay kula soo gudboonaato arrintan oo kale oo aad weydo sidii aad u heli lahayd ama aad ku kasban lahayd qofka aad jeceshahay qalbigiisa, waxaad kaga bogan kartaa dulucda maqaalka oo sideed ku kasban kartaa qalbigaasi janjeera. waa ay fududahay haddii aad samayso shuruudahan. kow, ugu horeyn ha noqon qof ku degdega u bandhigidda ama u gudbinta qofka aad jeceshahay fariintaada jacaylka. 2, waa inaad tahay qof furfuran, dabeecad wanaagsan leh. 3, haddii aad tahay dumar waa inaad noqotaa qof xishood badan. 4, waa inaad noqotaa qof dabeecad badan, soo jiidashana leh. 5, haddii aad tahay dumar ama rag, ku dadaal sidii aad ku ogaan lahayd qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo, adigoo aan weydiin qofka aad jeceshahay, balse raadi waddo kale oo aad ku ogaan karto, sida adigoo ka wareysanaya saaxiibkiisa ama saaxiibteeda adigoo aan laga dareemin ujeedkaadu wuxu uu yahay. 6, mar walba uga sheekee qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo. 7, ogow jacaylku inama lahan qofka uu qalbigaagu raacay. haddii uu yahay qof balwadiisu wanaagsanayn, ku dadaal sidii aad uga waanin lahayd adigoo hadallo macaan kula hadlaya. 8, qofka aad jeceshahay haddii uu yahay qof kaa fog oo aad laba wadan ku kala nooshihiin, ku dadaal sidii aad u xiriirin lahayd mar waliba adigoo telefoon kula hadlaya ama waraaqo lagu qoray erayo qalbiga u roon uga dirayo aaladda casriga ee internetka. haddii aad hal wadan wada joogtaan ama aad meel ka wada shaqaysaan, waa inaad mar walba ku soo dhawaysaa weji furan oo ay farxadi ka muuqato. 9, qofka aad gaclootay haddii uu kaa fog yahay ama meel wada joogtaan, noqo qof ka warqaba oo la qaybsada farxad iyo murugo wixii soo wajaha.
طبعا نقو قف لو حيسو مركو مقنيها إيو مركو جوغو كو طبعا وإنا تاي قف مرولبا إلاليا بلانتا لبا طبعا كوددال إناد أهديسو قفك أتجعشها وحيابها أو حيسايو أغونا هديدينتو وحي قيب لبحله كخاذتا كوبعنتا جعيلك واد ما سنتين دمان أصحابتا كوحرين يوكو أن كوحرين بان إيجانالك معاشق official فضلا هاتي أمقالكا كوحجبيا لبدك أصحابتا أديو سيشير غرينا يا فضلا لايك يا سبسكرايب هناقي إلابين